وحويان مقالة كعبنا بيا إيباد وانسكت دافع كروي مركاينا dadka dawladda ku soo dacwoonayaan go'aan ka gaadhnay ku soo urursanay marshuucan iskula soconaa dawaasada in saaka u soconaa aragaasha aragaraluhu ila airportkaanu nahay haraad baana laayay oo ka cabarayna wax kala dhibaatay noo hayso dawladda ayada waxaan ka codsanayna ku soo dhaweynayna Soomaaliya waxay ka cabanayeen kulleey tole anu hoolkan ku jiro bidkaan shaqeynay laakiin waxa la fariintay soo gaadhay waxay ahayd in ballaygii uu ka jabay oo biyo la'aan ay ka cabanayeen sida la ajligeed bulshada ku dhaqan deegaankaasi carragalanuug ballaygu ka jaban yahay waxa laakiin muso dhowr bilood ka hor ayaa lacag loo soo diray guddi baa loo xisaaray odayaala maamulka dawladda hoose kulleey gudoomiyaha degmada ayaa la socday سأل أسلي قد واحد الله ترى قال مرة هربا إن لاصم يوم قبتن كي بالله قاسو شوي دي بلوك كبا لو بقاد من لاصم خرج كي سنو دي سيهاي وقلوق بتشوقة يا صاع وصي حوشة سفرنتي يوم بانا حرصنايد odayaal iyo xildhibaano golihii hore deegaanka ah iyo culimada gobolka kamida ayaa hawsha u saaran oo gacantana ku haya marka bulshada deegaankaasi waxaan mar walba faraynaa in cidii loo xil saaray hawshaasi kulli way garanayaan haddii time ku yar fogaaday guddi bay leeyihiin guddidoodu ay u tagto odayaasha oo yiraahdaan xalanoo dardargeliyay waysan hayn annaga fariintii wayna soo gaadhay waxa way ballaygaasi carragalanuug sidii dawladdii hore wax dambe lagama qaban wuu aasmay marka dadkii area deganaa waxa weeyaan waa ruux waxay sheegayaan waxaan ugu caawiyo waxaan ugu wanaagsan waxa weeyaan waxaan doonaa haddii imika oo aan u sheegnay in loo qodi doono uu aasmay balay wuxuu doono baqaadis marka imika haddii aan la yiraahdo gudoomiyahoo ku maqanaysa markuu yimaado يحكي شير ما كيكين دونا هذا لا عارف فلا كين دونا لو بدأ يلا قصير دونا هذا لا هذا شو بقول خسيان بدنا مركب حويان وأنا وحي واجبة وأنا جوا حلك الناس صارن شعبي جا وحين نص دورتين ثانا واجب كودي أنا قلنا أنا واجب إن شاء الله ندو يمكن يقديسه إلى نصدق دقة هوا كله يعني شعنا وادت كاسب مقالة يصدق تنبيه ويفسدان وأنا دبي نصار ثانا أنا سوريدا أنا عسكري هدي الله هذا واحد دولنا بس لو كنا خسيها بدن أنا جهول قالوا وأنا عقفت قلنا ده بقعدنا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته